سعيد يوسف عمر oo shalay iska casilay xisbiga kulmiye oo ahaa gudoomiyihii xisbiga kulmiye ee degmada Kalbarre ee gobolka Togdheer ayaa war qoraal ku baahiyay barta ku leeyay Facebook waxa uu kaga hadlay ugu horeyntii marxaladda doorashada ee dalku aaday waxaanu yiri iyadoo lagu jiro xilli dalku aaday doorashada madaxtooyada iyo ururada siyaasadda waxaana muhiim ah in qof walba cadeeyo aragtidiisa siyaasadeed iyo cidda ku dhisayo ee uu door bidayo hogaamintiisa inay dalkan wax ka bedeliso marxaladda uu maanta taagan yahay. Siciid Yuusuf Cumar ayaa mar kale cadeeyay inuu aragtida siyaasadeed ku dhisayo xisbiga mucaaradka ee wadani waxaanu yiri waxa aragti siyaasadeed ku dhisaya murashaxa madaxweyne ee xisbiga wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro. Siciid Yuusuf Cumar ayaa ugu dambeyntii qoraalkaasi waxa uu ku sheegay waxaan u mahad celinayaa siyaasiyiinta kala duwan iyo bahda dhaqanka ee ugu soo dhaweysay xisbiga rajada shacabka ee wadani kuwaasi oo ah garbahan ku duulay doono. waxaan sidoo kale ilaawi karin asxaabtii kala duwaneed ee la soo xidhiidhay isla markaana igu dhiirigeliyay inaan isbedel doonka qayb ka qaato. waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliland inay codkooda siiyaan xisbiga rajada shacabka ee wadani. Allah mahadle ayuu ku soo gabagabeeyay qoraalkaasi gudoomiyihii hore xisbiga kulmiye ee degmada Kalbarre ee gobolka Togdheer.